madaxtooyada Soomaaliya xog cusub ka soo saartay xaaladda caafimaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. wasaaradaha cusub ee ra'iisul wasaare Xamse uu soo kordhiyay iyo waliba howlaha ay qaban doonaan Djibouti oo maanta ka yaabsatay dalalka Itoobiya, Soomaaliya iyo Kenya. wasiir Beele oo iska diiday inuu tago xafiiska xilaalinta guud. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena dhacdooyinka Soomaaliya. fadlan sii sheer garee muuqaalkan sidoo kalena qaybta falowga ama subscribe-ka noo saar. waa bilaash waxaan idiin soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo dunida. shacabka iyo madaxda dalka Djibouti ayaa maanta u dabaaldegay xuska sanad guuradooda ku beegan 27 Juun markii xornimada ka qaateen dalka Faransiiska sanadkii 1977. fantasiyada iyo dabaaldegga dhoolatuska ciidan ay maanta soo bandhigtay Djibouti ayaa waxaa ka mid ahaa diyaaradaha noocan iswadin ee droniska oo ay ka soo iibsatay dalka Turkiga. diyaaradan oo magaceedu uu yahay Bayrak TB2 waana diyaaradihii Ukraine isaga difaaceen duulaankii Ruushka wadankooda ku soo qaaday. sidoo kale waxaa la arkayay hub casri ah oo dowladda Djibouti ay ku soo bandhigtay fantasiyihii maanta. dhinaca kale sidii xaqiijiyeen ilo loo qaateen xukuumadda uu soo dhisi doono ra'iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre ayaa la filayaa inay ka koobnaato 30 wasiir. sida wararkeena aad ku daawateen waxaana la kala qaadi doonaa qayb ka mid ah wasaaradaha shaqadoodii hore loo maamulayay. xogo la helay ayaa tilmaamaya in markii ugu horeysay la soo kordhin doono wasaaradda deegaanka oo xilligan baahi xoogan loo qabo, halka la kala qaadi doono wasaarado ay ka mid yihiin wasaaradda waxbarashada, wasaaradda tacliinta sare oo hadda ah hal wasaarad oo isku mid ah. wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska ayaa in lagu soo waramayaa inay noqon doonto 2 wasaaradood oo kala madax bannaan, halka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka isku bedeli doonto dhanka magaca iyo hanaanka shaqada uu ka dhici doono sida xogtu ay sheegayso. xukuumadda hadda sii dhacaysa ee uu ra'iisul wasaaraha ka yahay Maxamed Xuseen Roble ayaa waxay ka kooban tahay 27 wasaaradood, halka isla tiradaasi ahayd xukuumaddii tan ka horeysay Xasan Ali Khayre. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa durbaba la sheegay inuu wajahayo cadaadis ay saarayaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo ku aadan soo xulista golihiisa wasiirada, waxaana sababta qasbaysa in la kordhiyo tirada wasaaradaha. Xamse waxa uu 25 Juun ee sanadkan helay codka kalsoonida baarlamaanka, wuxuuna ballan qaaday inuu dhisi doono xukuumad tayo leh oo lagu wada kalsoon yahay, taasoo diradda saari doonto arrimaha hortabinta u leh barnaamijkiisa dowladda. xilli dhowaanahan bay soo baxayeen in laga deerinayo xaaladda caafimaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaaro shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada. waxa uu ka hadlay xaaladda caafimaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan uu ku dhacay cudurka COVID-19. afhayeenku wuxuu sheegay in xaaladda caafimaad ee madaxweyne Xasan Sheekh ay tahay mid wanaagsan, wuxuuna xusay inaysan jirin ilaa hadda saameyn muuqato cudurkaani ku yeesha caafimaadka madaxweynaha. wuxuuna ugu bishaareynayaa ummadda Soomaaliyeed xaaladda caafimaad madaxweynaha oo hadda u muuqata mid wanaagsan, sida uu sheegay afhayeenku, isla markaana aysan jirin wax saameyn ah oo ku yeeshay cudurka COVID-19. Cabdikariin Cali Kaar ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha uu si caadi ah u wato howlihiisa isagoo raacaya talooyinka iyo habraacyada caafimaadka ee dejisa wasaaradda caafimaadka, isla markaana la xiriira cudurka COVID-19. wuxuu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uga mahadceliyay ducadii ay ummadda Soomaaliyeed u soo duceeyeen. dhanka kale afhayeenku wuxuu tilmaamay inuu madaxweynaha hore u qaatay talaalka COVID-19. ugu dambeyn afhayeenku waxa uu sheegay in maalinta berita madaxweynaha loo qaadi doono baaritaan caafimaad si loo hubiyo xaaladdiisa caafimaad, maadaama muddo dhowr maalmood ah ay ka soo wareegtay markii laga helay cudurka COVID-19. dhinaca kale afhayeenka ayaa waxa uu ka hadlayay waxa laga yeelayo ciidanka Eritrea ku maqan, kuwaasi oo tiradoodu ay gaarayso 5,000 oo dhalinyaro ah, kuwaas oo 5 sano soo dhaafay ku maqnaa dalka dibaddiisa, gaar ahaan dalka Eritrea. waxa uu sheegay inaysan fududeen in dib loo keeno ciidankaasi maadaama dalka Eritrea uu sheegay inuu yahay dal aad u adaga. ugu dambeyntiina wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa qoraal uu soo saaray wuxuu gebi ahaanba ku gacan seeray inuu tago xafiiska xilaalyaha guud oo dhowaan looga yeeray, isagoo sababeeyay uga dhigay wasiir Beele inuu qiray inay soo gaadhay warqad ka timid xafiiska xilaalyaha guud ee qaranka. wuxuu si cad u sheegay inuusan tegi doonina sida uu qabo qodobka 3 ee firqadiisa 2 ee xarafka B oo sharxaya dhismaha xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda
garyaqaanka guud ee dowladdu wuxuu mas-uul ka yahay difaaca dowladda iyo xubnaha u shaqeeya maxkamadda hortoodana uu ku difaaca ayuu yidhi wasiir Beyle qoraal uu soo saaray. Beyle wuxuu sheegay inay jiraan qalad dhinaca sharciga oo warqadda ka soo baxday xilaalyaha guud ee qaranka, isagoo tilmaamay in garyaqaanka guud ee dowladda uu la wadaagayo wixii macluumaad ah ee xafiiska xilaalyaha guud ee qaranku uga baahdo. Arrintan ayaa waxay u muuqanaysaa in Beyle uu diidayo in xisaab ay ku soo baxdo, isla markaana waxaa hadda muuqanaya in xilligan Beyle uu difaac adag ka galay inaan su'aalo laga keenin qaabkii uu maareeyay maaliyadda muddadii uu xilkan hayay. Dadka ka faallooday siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan dhaqaalaha ayaa waxay tilmaamayaan in wasiir Beyle loo baahan yahay in lala xisaabtamo isla markaana maxkamad la soo taago haddii ay wax ku caddaadaan. Guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa dhacdooyinkii 24 saac ka dhacay Soomaaliya oo aad ka daawanayseen Bandhiga TV.